waxaan kaloon aad ugu mahadnaqayaa garabka dhalinyarada ee ka yimid Hargeysa ee qalabkan quruxda badan la iyo koobabkan iyo biladahan iyo agabkan sportiga kubadaha noo waday si ay motivate gareeyaan waayo noloshu haday motivation weydo oo qofku uu waayo dhiirigelin meel buu iska fadhiisanaya marka dhalinyarada gobolka Awdal motivation ka wadaan dhiirigelinta wadaan hadaatiin garabkii dhalinyarada xisbiga kulmiye iyo guud ahaan xisbigaba aad baan idinku mahadnaqaynaa inta kadib waxa weeye halkan waxay noo yaala qalab kala duwan oo dareyskii iyo koobabkii iyo biladihii iyo kubadihii bale dareyskaas waxaynu doonaynaa inaynu hadii ilaahayadmo bisha barakaysan aynu dhalinyarada kala qayb qaadano oo aynu ku motivate garayno oo xisbigu uu dhiirigeliyo in koobabku waayo ciyaaruhu caafimaadkana qayb ka yihiin waana bil Ramadaan marka waxa weeyaan aad bay xisbiguna ugu mahadsan yahay inay dhalinyarada dhiirigelintooda ay nagala qayb galaan waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyaradii gobolka Awdal runtii maxay qoladii majaajilada sutta iskala loo soo hoobanaa islaantii waa la soo hoobanaa dhalinyaradii way soo hoobanaysaa kulmiyana soo hoobanaysaa really dhalinyaradii way isdaba taagan tahay maalin dhaweed waxaan xaflad weyn halkan ugu qabanay ururka dalada gurmad maanta waxa nala jooga oo halkan ku soo marti qaadnay runtii inay nagala qayb galaan oo iyakana cusbay wada hadal noo socdeen dhalinyarada hormood oo runtii dhalinyarada waqtifa dhalinyar badanna saas isku daba taagan tahay waxaan rajaynaynaa in gobolka dhan dhalinyaradiisu marka hore beelaha oo guuraya ku soo biiraya xisbiga laakiin se maanta waxa bog cusub furay in dhalinyaradii gobolka Awdal oo qabiil lahayn oo urursan oo nidaamsan ay xisbiga ku soo biiraya runtii aad ayaan ugu hanweynahay in waxa la inoo igmaday aynu dhalin doono halka ragayaag taagani waa tiimkii gudoomiyuhu waaga dhaweyd u soo xulay inay halkan ka dhaliyaan codka waan aaminsanahay inaynu dhalin doono hadii Allah wadaliyo inagoo gacmaha haysaysana ayaynu dhalin doonaa halkan erayar baan rabaa inaan uga faa'iideysto waxa weeye xisbigan kulmiye waa xisbi wax qabad weey waxaynu iibinaynaa waxa weeye waa wax qabad waxa aynu maanka dadka ku kasbanaynaa waxa weeyaan waa productigaasina waa waxa uu xisbigu qabto ee ay kamid tahay kaabayaasha dhaqaalaha ee ay kamid tahay caafimaadka ee ay kamid tahay ma garanaysaayay wadooyinka hadaanay wadada Boorame iyo Hargeysa isku xidhaay una maantii madaxweynaheenu Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xukuumadda jirta ee imika talada inoo haysa ayna inoo dhisin maanta adeega isku socodka magaalada ee 1 hour ka lagu socdaay ma u jireen waxaad moodaa adeegyada faraha badan leh dawladdu qabatay iyo xisbigu dawladdu dhalay dawladuna iyada u igman oo qabanaysa waxaad moodaa inay qolada asxaabta mucaaridku waxaad moodaa inay muraad madow sitaan oo inay uba muuqanba waxaad moodaa imika guri qurux badan baynu ku jirnaa xaflad qurux badanna waynu iskugu nimidnay hadaan guriga dhaliilu raadiyo uma waayo dhaliil hadaan marka wax halka ka muuqata in xisbigii wadani uu ku wareeray uun dhaliil iyo cay u joojin maynaynaku waxbaynu qabanaynaa maanka dadkaynu iibsanaynaa nin caytamayaay macna male hadii awood leeyihiin hadisaan xisbigii gobolka waa ka burbursan yahay nin yarba meelaha ka caytamay meelaha internetka ka aragna isagoo meelaha ka caytamay war xisbigiina dhista ha ku wareerina baan idin leenahay waa kii laga dareeray waxay awoodi kari waayeen inay dhisaan dhista structure-kiina intaad ku wareerisaan dadka maankooga wax macquul ah ka iibsada waa inuu xisbigu yeeshaa policy waa inuu yiraahdaa xisbi waxa lagu og yahay waa inuu la yimaadaa waxaasaan waxbarashada ka bedelaya waxaasaan biyaha ka qabanaya waxaasaan adeegyada bulshada ka qabanaya waxaasaan dariiqyada ka qabanaya war miyaynu aragna xisbi bolasiga leh maya maynaan arkin waxaad arkaysaa niman cayme la taagan dadka xagxaganaya caytamaya ma garanaysaa sidaa uu ma garanaysaa taa uu ka hadlay ku sii rafan maaye waxay doonayaan inay beelaha isku xoqi maayaan beelo la isku xoqi maayo dadku waa dad walaala waxba la qabanaya amniga laga shaqeynaya horumarka laga shaqeynaya war waxa aad ku wareereysaan wuxuu yiri Saciid Sulubiye buu ka hadlo waagi meesha ma garanaysaa aan meesha ay burburiyeen ayuu yiri hadaadigii udub baa burburiyuu yiri nin hadaadigii udub weey
hadhaadiga urudna ku wareeri mayno waxaynu u baahannahay inaynu wax qabsano waxaynu u baahannahay inaynu dadka wax aynu aaminsanahay aynu ka iibino ay waxba ma tarto inagu cid caay mayno xaraan bay naga tahay inaynu dad caayna waxaynu u baahannahay waxa aynu aaminsanahay inaynu dadka ugu tartanno taasaynu ku kala badinaynaa waxaynu ku kala badinaynaa codka dadkaynu ku kala badinaynaa ay kuma kala badinayno ay waxba ma tarto ay waxa ma tarto dad la xagxagtiya dad la caayo waxa weeyaan policy yeesha waxa dadka ka iibinaysaan soo bandhiga anagu wixii aan dadka ka iibinay waxna waan qabanay waxa dhimanna waanu qaban doonaa hadii ilaahaymo waxana ka dhabayn doona murashaxeena madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenkeena teamka ka dhamaynaya iyo teamka la shaqeynaya ay dooran doonaan kuwaasa inta dhimanna ka dhabayn doona hadii ilaahaymo